war uu cinwaan ugu dhigay wargeyska The Independent xisaabta khaladka ee uu Trump isku dhufsaday ee dagaalka Iran oo kashifan. Warbixintan waxa aan dib u eegis ugu sameynaynaa waxa ay wargeysyada caalamka ka qoreen dagaalka Iran, waxaana qoraaladan kamid ah maqaal tafatiraadka ka soo baxa wargeyska Ingiriiska ee The Independent oo ka hadlay isku dhufashada khaladka ee Trump ee dagaalka Iran, iyo maqaal uu qoray wargeyska Faransiiska ka soo baxa ee la yiraahdo Le Monde oo ku saabsan halista weerarada Israa'iil ee Lubnaan. Wargeyska The Independent ayaa qoray maqaal uu kaga faalloonayo xaaladda Bariga Dhexe iyo sida Trump uu xaalka ugu cakiran yahay, isagoo ciwaan ugu dhigay khaladaadka xisaabeed ee madaxweynaha Donald Trump waa la kashifay. Wargeysku waxa uu sheegay in 2 toddobaad kadib bilowgii dagaalka Iran ay iska caddahay in Trump uu xisaab khaldan isku dhufsaday, sida muuqata ma uusan tixgelin in duqeymaha Iran ay sare u qaadi karto qiimaha shidaalka ee Mareykanka. Inkastoo Mareykanka uu dhoofiyo shidaal, haddana waxaa intaas dheer sida wargeysku uu qoray in Trump lagu wargeliyay in marinka Hormuz uu xirmi karo haddii uu dagaal ku qaado Iran, balse uu iska indho tiray. Waxaana sidoo kale maqaalkan lagu sheegay in Trump uusan tixgelin suurtagalnimada in arrintan uu ka faa'iideysan karo Ruushka haddii qalalaas uu ka yimaado sahayda shidaalka, ayna fursad u tahay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin lagana yaabo inuu ka dabciyo cadaadiska saaran xilli culeysyada dhaqaale ee Ruushka saaran dagaalka Ukraine awgiis ay gaareen xaalad aad u culus. Dhinaca kale, war la yaab leh ayaa soo baxaya. Shiinaha ayaa lagu waramayaa inuu howlgallo qarsoodi ah ka wado gunta hoose ee badaha adduunka, isagoo adeegsanaya maraakiib badan oo quusayaal ah ama gujis, kuwaas oo ay la socdaan khubaro calaamadeynaya ama qariirad ka sameynaya dhulka hoose ee badda. Tallaabadan oo lagu sheegay inuu Shiinaha isugu diyaarinayo dagaal suurtagal ah oo la gali karo Mareykanka, sida ay warisay wakaaladda wararka ee Reuters oo xiganaysa ilo sirdoon oo reer galbeed ah. Dhinaca kale, Israa'iil ayaa duqeymo ka fulisay magaalada Tehran ee caasimadda Iran saacado kadib markii Trump uu ku dhawaaqay inay socdaan wadahadallo lagu joojinayo dagaalka, walow ay Iran beenisay wadahadallo inay socdaan. Iran ayaa waxyar ka hor ku weerartay bartilmaameedyo ku yaala Tel Aviv nooc gantaalo madaxyo qaraxyo wato oo 100 kilogaram ah, hal marna dhowr bartilmaameed oo qaraxyo ka dhalin kara, iyadoo nidaamyada difaaca Israa'iil ay tiro badan oo gantaalo ah rideen si ay isugu dayaan inay ka hortagaan weerarkan, ayna suuragali weyday inay ka hortagaan, sida uu wariyay wargeyska Ingiriiska ka soo baxa ee The Guardian. Iran oo magacowday taliye cusub oo ah amniga qaranka kadib dilkii Ali Larijani. Wargeysyada ka soo baxa Iran ayaa ku waramay in Mohammad Bahjari Zolfakhari loo magacaabay xogayaha golaha sare ee amniga qaranka ee loo yaqaano SNC, sida uu sheegay sarkaal ka tirsan xafiiska madaxtooyada Iran. Magacaabistan ayaa daba socota dilkii loo geystay sarkaalkii hore ee ugu sarreeyay dhanka amniga qaranka ee Ali Larijani 17 bishii Maarso.